الله الرحمن الرحيم subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo warbaahinta qaran media qodobada ugu waaweyn saakay waxa kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyo aadanjiyaashiisa shirka istiraatiijiyada warbaahinta oo ka socda Istanbul ee dalka Turkiga dawladda Kanada oo Soomaali ugu deeqday dhaqaale gaaraya 26 milyan oo dollar qaramada midoobay oo soo saartay baaq ku socda madaxda Soomaalida madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in 100 aqoon-yahano Soomaaliyeed la siinayo deeq waxbarasho oo heerka PhD ah iyo William Ruto oo shaqo joojin ku sameeyay afar ka mid ah guddiga doorashada Kenya iyo Raila Amolo Odinga oo ka hor yimid arintaasi Radio Qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa sabti taariikhdu ku aastaysan tahay 3 bisha December ee sanadka siidlaanaya 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada maqasheen oo faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho iyagoona sidoo kale kulanka ugu hadli doono arrimo dhowr ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah waxay kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeelan doonaan xarunta Villa Hargeysa oo ku dhex taala gudaha madaxtooyada dalka ajendaha kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu yahay qaybinta akhrinta koowaad ee hindisaha sharciyeed koontada iyo warbixin laga dhageysan doono xildhibaanada baarlamaanka ka soo qaabtay deegaan doorashooyinkooda xogayaha golaha shacabka ayaa xalay fariin wargelin ah u diray mudanayaasha golaha isla markaana waxa xildhibaanada laga dalbaday inay ka qayb galaan kulankaasi oo saacadaha soo aadan ka furmay xarunta Villa Hargeysa toddobaadkii hore ayaa waxa ay tahay markii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay kulan yeesheen akhrinta koowaad ku mariyeen sidoo kale qoontaha miisaaniyada dawladda federaalka ee 2023 shirka istiraatiijiyada warbaahineed ayaa waxa uu ka socdaa waqtigaani caasimadda Istanbul ee dalka Turkiga wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Daawud Aweys Jaamac ayaa waxa uu magaalada Istanbul maanta kaga qayb galay shirka istiraatiijiyada warbaahinta caalamiga xilli dunida ay ka jiraan caqabado iyo sidoo kale xasarado kala duwan oo ku in loo baahan yahay in lagu dabaqo siyaasadda cusub ee dib loogu qaabeynayo isbeddelka socda qodobkan oo inta ka faahfaahsan waxa la diyaariyay istaahil wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Daawud Aweys Jaamac ayaa maanta magaalada Istanbul kaga qayb galaya shirka istiraatiijiyada warbaahinta caalamiga xilli dunida ay ka jiraan caqabado iyo xasarado kala duwan oo u baahan in lagu dabaqo siyaasadda cusub oo dib loogu qaabeynayo isbedelada socdo shirka ayaa waxaa halkudhig u ah istiraatiijiyada warbaahin xilli lagu jiro hubinta la'aan iyadoo dunida ku soo kordhayaan faahfaahino wararka beenta ah kicinta iyo abaabulka colaadaha iyo in si xun loo adeegsado warbaahinta qodobada shirka caalamiga ah looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah waxyeelada warbaahinada sida qaldan looga tabiyo ama marin habaabinta in si wanaagsan loo adeegsado aaladaha casriga ah ee warbaahinta iyo in bulshada loo tabiyo warar waxtar u leh Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ku hawlan dib u qaabeynta istiraatiijiyada warbaahinta si looga miro dhaliyo howlaha xasilinta nabadeynta horumarka iyo in laga fogaado in si xun loo adeegsado warbaahinta cusub ee sida sahlan bulshada u wada gartaa xilliga casriga ah ee lagu jiro madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo khudbad ka jeediyay ka qaybgalayaasha shirkan ayaa xusay muhiimadda ku jirto in laga wada xaajoodo qaabeynta istiraatiijiyada warbaahinta ayaana jirto fursado la isku dhaafsado fikir
iyo khibrado si loo wajaho hubin la'aanta dunida ka jirto isbedelada dhacaya. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Mudane Daawud Awees ayaa dhanka kale kulamo la qaatay qaar ka mid ah wufuudda ka qaybgalaysa shirka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Daawud Awees ayaa dhanka kale kulamo la qaatay qaar ka mid ah wufuudda ka qaybgalaysa shirka oo uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha sare ee warbaahinta Turkiga. qaramada midoobay ayaa soo saartay baaq ku socda madaxda Soomaaliya iyadoo la xusayo maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah ee loo soo gaabiyo IDPD. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta ku bogaadisay maamulada Soomaaliya horumarka ay ka gaareen aqoonsiga xuquuqda dadka naafada ah, waxayna ku dhiirigelisay inay sii xoojiyaan guulaha ay gaareen. sanadkii 2019 dowladda Soomaaliya ayaa waxay saxiixday axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafaha ah. tani waxay arrin taariikhi ah u ahayd Soomaalida naafada ah iyo qoysaskooda. waa mid muujinaysa sida ay dalkooda ugu go'an tahay horumarinta, ilaalinta iyo hubinta in sidoo kale dhammaan dadka naafada ah ay si buuxda oo siman ay ugu noolaadaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha asaasiga ah, ayay tiri ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Anita Kiki. si loo helo bulsho si dhab ah loogu wada dhan yahay, caqabadaha jireed iyo isgaarsiinta waa in meesha laga saaraa lana dejiyo sharci ku saabsan xuquuqda naafada iyo sidoo kale dhismaha hay'adda naafada ee qaranka Soomaaliya. waxayna muujisay sida ay ugu go'an tahay in arrintaani ay dhacdo. qaramada midoobay ayaa madaxda Soomaalida ay ugu baaqday inay sii wado dadaalada lagu doonayo in arrimaha naafanimada lagu daro horumarka dalka, waxayna diyaar u tahay inay taageerto, ayay raacisay Marwo Anita oo sidoo kalena hadda ah madaxda siyahayaha ee xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM. iyadoo sanad waliba la xuso 3 December golaha guud ee qaramada midoobay ayaa aasaasay maalinta caalamiga ee naafada sanadkii 1992. maalintu waxaa loogu gol leeyahay in kor loogu qaado fahamka arrimaha naafanimada iyo laguna abaabulo taageerada sharafta ah, xuquuqda iyo fayaqabka dadka naafaha. waxa kale oo ay doonaysaa inay kordhiso ka warqabida faa'iidooyinka laga helo isdhexgalka dadka naafada ah dhinac kasta oo siyaasadeed iyo bulshada, dhaqaale iyo nolol dhaqameedba. dhanka kalena dowladda Kanada ayaa Soomaaliya waxay ku deeqday dhaqaale gaaraya $26 milyan. geeska Afrika waxaa ka jira abaartii ugu xumeed in ka badan 4 sano la soo dhaafay. Kanada waxa ay aad ugu walaacsan tahay saameynta abaartu ay ku yeelatay dadka u nugul ee markii hore baa la daaladhacayay saboolnimada, amni darrada iyo musiibada COVID-19. abaarta 2020 ilaa 2022 waxay hadda dhaaftay abaarihii foosho xumaa ee 2010 ilaa 2011 iyo 2016 ilaa 2017. ilaa 50 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto degdeg ah dalalka Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, South Sudan iyo Suudaanba. maanta Mudane Hajri wasiirka horumarinta caalamiga ah ayaa ku dhawaaqay sida Kanada ay wax u qaban doonto gaajada, nafaqo-xumada baan iyo walaacyada kale ee muhiimka ah ee dadka ay u dhibaatay, sidoo kale dhibaatadu ay saameysay ee si loogu caawiyo ka hortagida macluusha gobolka Geeska Afrika. wasiirka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in lacag dhan $107 milyan loo qaado sidoo kale loo qoondeynayo gobolka weyn ee Geeska Afrika oo ay ka jiraan $25 milyan iyo Ethiopia loo qoondeeyay $11 milyan oo Kenya ah $20 milyan Soomaali loo qoondeeyay $25 milyan loona qoondeeyay Suudaan iyo Suudaanna $20 milyan oo Suudaan ayaa loo qoondeeyay. maalgelinta ayaa qayb ka ah $250 milyan oo maalgelin ah oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Justin Trudeau 26 Juun sanadkan si idlaanay 2022 si wax loogu qabto dhibaatooyinka sugnaanta cunnada ee adduunka, waxaana la siin doonaa hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa aan dawliga ahayn. wasiir Sajan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Kanada ay ku bixin doonto lacag dhan $12.2 milyan muddo 3 sano hay'adaha cunnada adduunka ee WFP, taasoo lagu talagalay barnaamij cunno nafaqaysan oo maalinle ah oo la siin doono in ka badan 32,000 oo arday oo iskuulo ah oo ku nool gobolada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo ay ka jirto cunno yari.
imanka akhbaaraadka dibadda haddii aan eegnana William Ruto ayaa shaqo joojin ku sameeyay 4 ka mid ah guddiga doorashada Kenya iyo Raila Amolo Odinga ayaa ka hor yimid arrinta. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shaqada ka joojiyay 4 ka mid ah guddiga doorashada oo diidayay inay taageeraan guushii ku gaaray doorashadii bishii Agoosto ee ka dhacday dalkaasi sidoo kale madaxdu sheegtay Jimcihii wuxuu sameeyay guddi baaritaan ku sameeya haddii ay haboon tahay in xilalka laga qaado. talaabadani ayaa dagaal cusub oo u furtay dawladda iyo mucaaradka waxa ayna timid kadib markii baarlamaanka Kenya uu Ruto ka codsaday inuu sameeyo dacwad ka dhan ah xubnaha guddiga doorashada ee kala ah Julan Chereya, Justice Nagaya, Irene iyo sidoo kale Masit. Raila Amolo Odinga hogaamiyaha mucaaradka ee Ruug Cadaagahi ee sida dirqiga ah loogaga guuleystay doorashadii Agoosto ayaa ku gacan saaray talaabadii uu Ruto uu ku qaaday xubnihii diidna natiijada doorashada. dibadbaxadii ugu horeeyay ayaa ka dhici doona Nairobi December 7 halkaan ayaana labadanaba ay qaban doonaan December 12keedii. xafiiska Ruto si degdeg ah uguma jawaabin markii wakaalada wararka Reuters ay wax ka weydiisay eedeynta. mid kamid ah guddiga Justin ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu iscasilay sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. 4 xubnood ayaa qabta shir jaraa'id oo barbar socda kan gudoomiyaha guddiga doorashada bishii Agoosto 15keedii waxayna sheegeen in aanan qayb ka noqon karin natiijada sida tooska telefishinada ay kaga dhawaaqeen gudoomiyaha iyo 2 xubnood oo kale. guddaan saaxiibayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warka subaxnimo ee nabadgelyo. Radio Qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com